Ciidamada badda ee Midowga Yurub ayaa qabtay 6 qof oo looga shakisan yahay inay yihiin burcadbadeed Soomaali ah kadib markii ay rasaas ku fureen markab shidaal oo marayay gacanka cadmeed. Ragga la qabtay ayaa la sheegay inay weerar ku qaadeen markabka Crystal Arctic oo sitay calanka Jasiiradaha Marshall, sida ay sheegeen saraakiisha howlgalka fulisay ee ciidamada badda Midowga Yurub. Burcadbadeedda ayaa rasaas ku furay markabka iyagoo markaas saarnaa doon yar oo hub u saarnaa, sida ay sheegtay xarunta howlgallada ganacsiga marin-biyoodka UK oo korjoogteysa marinada markabka ee bariga. Burcadbadeedda ayaa sitay qoriga nooca Kalashnikov iyo bambooyin, sida ay sheegtay shirkadda ammaanka sida gaarka loo leeyahay ee Embraer. Weerarkaas ayaa ku soo aaday iyadoo koox Xuutiyiinta Yemen ay sidoo kale weerareen maraakiibta maraysay Badda Cas iyo marinka Bab el-Mandeb. Markabka waxaa saarnaa ciidamo hubeysan waxayna burcadbadeeddu ku fureen rasaas markii hore, balse rasaas kale ayay uga jawaabeen ciidamadii saarnaa markabka. Taasi waxay sababtay inuu dab ka dhasho doontii ay wateen ragga burcadda ah. Rasaastii laga soo riday markabka ayaa la sheegay inay haleeshay fuusto shidaal ku jiray oo saarneyd doonta burcadda, taasi oo sababtay in dab ka dhashay doontiina gubatay. Ugu dambeyn, qoladii la weeraray ee markabka waxay gurmud u fidiyeen oo badda ka soo badbaadiyeen burcaddii, kuwaas oo la sheegay inay qabaan dhaawacyo aan la kala xaqiijin inay dab yihiin iyo rasaas inay yihiin. Weerarada badda ee muddooyinkii socday ayaa hoos u dhigay isu gudubka ganacsiyada ee marin-biyoodkan muhiimka ah ilaa kanaalka Suez iyo badda Mediterranean-ka.